بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرست الشيخ عالم كاها maantayto si bareer ah loogu dilay magaalada Kismaayo kadib markii uu ka soo baxay masaajidka Ilaahay ayaa si bareer ah loogu dilay magaalada Kismaayo. sidaad ogtihiin Kismaayo waa meesha haldoorka ummadda Soomaaliyeed lagu kharijiyo. arrintaas waxaa wato sirdoonka Kenya, ururka argagixisada Ras Kamboni ee uu hogaamiye Axmed Madoobe iyo Al-Shabaab. meeshu waxay noqotay meel argagixiso isku hirdido, sababtoo ah laba argagixiso ayaa meesha joogta. kooxdan Uhuru Kenyatta ka amar qaadato argagixisa iyo kuwan u adeego ay Axmed Madoobe u hogaamiyo oo ayagana argagixisa ah. meeshu waxay noqotay meel laba argagixiso isku haysato. markaas ummadii Soomaaliyeed mar walba waxaa lagu bartilmaameystaa waxgalkeedii, dadkeedii ugu wanaagsanaa. khaasatan hadda waxay noqotay meeshu meel si gaar ahaaneed looga beegsado qabiilkan dhulbaantaha la yiraahdo ee waxgaradka ah ee Soomaaliyeed. meel waxay noqotay lagu beegsado ayay noqotay meeshu. ilaa inaan runta sheegno, Ilaahay baa nagu jeclaan. gabadhii miskiinteed Hodan Naaleey la dhihi jiray ayaa si bareer ah loogu dilay, loola beegsaday qarax. waxaan qarax ahayn intaa laguma dilo. waxyaabaha isweydiinta mudan waxay tahay qarax unbaa lala beegsadaa. Saada Ali Warsamo qaraxa lagu dilay, Hodan Naaleey qaraxa lagu dilay. hadduu Ilaahay ku ray haddana dhakhtarkii sheekhi caalimka ahaabaa caawa la dilay. waxaad moodaa marka ummadan qoladan dhulbaantaha la yiraahdo dadka Soomaali ugu, hadduu Ilaahay ku roon yahay, sida markii daraasaad la sameeyay ugu murtida iyo xigmadda badan waaye ee Soomaaliya. haddana wadaniidnimaduna waa dad qalbigoodii wadaniidnimada degtay waaye. qoladan dhulbaantaha la yiraahdo waa dad wadani ah, waa dad Soomaalinimada jecel, waa dad midnimada jecel waaye. marka waxaa la yiri qoladan hala taarget garaysto, meel walba laga taarget garaysanaya. uma roona dhinacaan Hargeysa xaggeeda, uma roono Muuse Biixi, hadduu Ilaahay ku roon yahay shabaabkii uma roono, qoladan Ras Kamboniga uma roono, Kenyaankii uma roono. cid walbo taarget bay ka dhigatay dadkeedii waxgalka ah in la dilo, in la dhibaateeyo, la khaarijiyo, shirqool lagu dilo, la sumeeyo, dhan walbo in la dhibaateeyo go-aan baa lagu gaayay xaqiiqdii. waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto sheekhaas caalimka ah ee wadaniga ahaa, ee runtii geesiga ahaa, diinta ka run sheegi jiray, marnaba aan hadafkiisa la gaban jirin, oo runtii haddana runtii ahaa nin runtii jecel ummadan Soomaaliyeed horumarkeedii iyo kabsashadeedii, aadna u nabcaa dalka Soomaaliya in la kala qiibiyo. ayaa maanta waxaa Ilaahay qadaray in meeshayda lagu khaarijiyo. magarat waxaa way arrintan Kismaayo horeyna waan idinkugu sheegay, laba argagixisaa ku hirdinto. Ras Kamboni jabhaddii wadaadkii Xasan Turki la dhihi jiray ka tagay ee Axmed ka dhaxlay iyo waxaa isku haysto shabaab. labada qolob waa argagixiso, waa cadow Soomaaliyeed waay. waxay isdhaamaan oo caawayto haba yaraatee ma jirto. waa laba argagixiso waay, waa laba cadow Soomaaliyeed waay. Kamboniintu waxayba dheer yihiin, waxay si toosa xiriir ula leeyihiin Kenyaanka ee cadowga ah ee duulaanka ku ah badda Soomaaliyeed iyo beriga Soomaaliyeed. ayaaba duulaanku ah xaqiiqdii. waxaad moodaa marka in meesha iyada ay noqotay kawaankii dhulbahante Kismaayo. aad iyo aad baan ugu xumahay. allah u naxariistaan leeyahay. sheekhaas naxariistii janna Allah ka waraabiyo. intii la dhimatayna samar iimaan Allah naga siiyo. hadduu Ilaahay waa shuhadaa waaye. hadduu Ilaahay ku roon yahay, caalim Soomaaliyeed buu ahaa oo runtii jecel. maalmahan maxaadarooyin buu ka jeediyey, waxyaabaha uu ka hadlay ummadda dhibka laga daayo
yaan la gumaysanin yaan la dhibaataynin war dalka soomaalinimada loo soo noqdo midnimo ha la raadiyo intaasuu ka hadlay ya midnimadii haddaad ka hadasho waa lagu dili yaan la kala qiibin Soomaaliya haddaad tiraahdo oo lagu helo meelaha qaar waa lagu dili cadow dalka laga saaro haddaad tiraahdo waa lagu dili Kenyaanka dalka laga saaro hadii waa lagu khaarijin ma garad wadaadkaas waxa waaye si toos ah xogaha aan helayno maalmahan intuu Kismaayo joogay dhaqan xumada jabhadda Raaskambooniinta meeshay ku hayaan ayuu ka hadlay baadii dhaqan xumada kufsiga dhulboobka jirdilka hadduu Ilaahay ku ruux afduubka hadduu doorashada boobka cadaalad darradu arrinii buu ka hadlay markaas waxa lagu leeyahay shabaab maahan waa Raaskambooni waxa dilay oo qarxiyay oo wadaadkaas bartilmaameedsaday waa jabhadda Raaskambooni liiraad Axmed Madow ka amar qaadato way cadda arrinta sayida qofaan weyn maahan marka waxaan leenahay Allah u naxariisto wixii hum baxaawale baa leeyahay shabaab buu isaga saarin asiga uu isdhaafsin tacsiyo dhigi wax walba wixiina wax la soo abaabulay oo hadduu Ilaahay ku roon yahay muxuu ahaa villadan oo Axmed Madow villadan Uhuru Kenyatta yani muxuu ahaa looga amar qaato meeshayda waa laga soo diyaariyay hay'alay maanta haddii midnimo ka hadasho shabaab baa loo daayay baa leeyahay hadda markii magaalooyinka qaar aad joogto ayadaha qaar ma wala fasiraa inta badan tafsiir qofku dadka markuu akhrinayo geesu iska fiirinaya tafsiirka markuu soo gaaro suuradan leeyahay suuratul maa'ida oo kale waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban aliman ayadaha sida yani muxuu ahaa quraanka kariimka ah oo dhiig muslimku xurmadu leeyahay ka hadlo al-shabaab hatta ayadahaas weydiideen in la akhriyo ma ogola liimaana sababta waxay ku leeyihiin yani waxay niijibinayaan mujaahidiinta waa kuwa masaajidda ku dilo waa kuwa salaada ku gaado waa kuwaas oo khawaarijta sayida marka Kismaayo laba khawaarij baa u gacan gashay kooxda Raaskambooni Axmed Madow ka amar qaadato iyo Kenya iyo kooxda shabaab liiraado si kastaba haatee sheekhi waa dhintay Allah subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto qaraabadii iyo ehelkii iyo qoyskii uu ka geeriyoodayna samri iimaan Allah ka siiyo insha Allah ta'ala taasiintaas aan ugu bixinaa sida la socotaan magaalada Muqdisho maantayto qaraxyo siyaasadeed ayaa la sameeyay qaraxyo fara badan ama weeraro oo runtii la soo abaabulay markaan dabagal aan sameynayna ay lugaha la gashay weerarada ayaga ah waxaa lugta la galay ama la ogaaday kooxdan xaraash qaran inay noqdeen kuwa fududeeyo magaalada Muqdisho qaraxyada dambe iyo dhibaatooyinka dambe socdo oo dhan iyo dililka qorsheysan xamar ka dhaco maanta waa cadaatay markii la qabtay telefoonadii laga helay raggii ay la xiriireen waa rag hadda madaxweynenimo raadinay Soomaaliya muhiim ah inaan hebel dhaho caawad sababtoo aydaaba gaari doonto waan ogaanaynaa ilaa ma weerarkii daraad kaxshaga lagu qaaday shantii weerar maanta dhacay dhammaantoodii murashaxiinta madaxweynayaasha ee xamar joogo iyo Kenya Djibouti Imaaraat intaas wala dhaafsin way inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaa wana abaynin ya laakiin waxaan soo jeedinayaa dawladdu waxaan leeyahay wax qarin baa dhibaatadan ugu badan waxa noo geystay wax walba oo xog aan la helo waad qarisaan qarinta joojiye qaraxyadan iyo qorshahan ragga soo abaabul hadduu Xasan Sheekh Maxamuud yahay sheega oo nimanka laga hadalsiyo nimanku ha laga hadalsiyo ha sheegaan oo Xasan baan soo abaabulo Shariif baan ka amar qaadana Daahir Geelan ka amar qaadana Hussein Abdulxalan ka amar qaadana Sharif Sakiin baan ka amar qaadana war dadku yaa la qarinina hala sheego arrinta markii banaanka la keeno zaalimiintan markii la ceebeeyo tuugtan markii ceebtoodii banaanka la soo dhigo
oo maanta inay annaka madaxweyne noo noqdaan ay raadinayaan wax badan baa dalka waa badbaadi dadkuna waa badbaadaya ayagana fadaaxad bay ka raacaysaayo ma damcayaan hataa kursigaas madaxweynenimo inay dib dambe ay u sheegtaan oo yidhaahdaan madaxweynenimaan rabnaa dacar aad baan kuu salaamay dacar nabadii nolol aad baan kuu salaamay halii qaran baa tahay ilaahay meeshaad ha kuuga amaansado dagaalka qof meel buu ugu jiraa aad baan kuu salaamaya sheergalay barnaamijku sheergalay waxaan rabaa marka inaan u sheego qaraxyadan dambe muqdisho ka dhaco shabaab wax shaqay ku leeyihin haba yaraatee ma lahano waxay noqdeen qaraxyo siyaasadeed bay noqdeen shabaabkii bay xiriir toos bay la yeesheen inay fududeeyaan oo ay la shaqeeyaan oo ay shacabkaas lafahooda inay dab ku shidaan bay go-aan ku gaareen waa kooxo manaxyaal ah ayagii iyo kuwa xalana joogaba way u tashteen ummaddan soomaaliyeed sababtoo soomaali hadday degto lacag lama helayo soomaaliya waxay noqotay qolo dowlad ku nool ah iyo gaalo ku nool baa loo kala baxay kuwa gaalada ku nool mar walba waxay fidiyaan oo ay faafiyaan dhibaatada dalkay faafiyaan dalku waa lagu dhammaaday saasaa dhacday abaar baa dhacday xoolihii baa saanbalaa noqday qayldhan waa wareey waa gaalo ku nool waay dadna waa dad dowlad ku noola dowladnimay rabaano ummadda taagta daran oo aniga oo kala ka mid ah dadku kooxo hogaamiye kooxeed ah xabad ku nool ah iyo qalin ku nool baa la kala yahay dad baa xabad ku nool ah ummadna waa qalin ku nool waay qalin ku nool tacab ku nool ma garata waa qalin ku nool tacab ku nool iyo qori ku nool ma garata jaajuusnimo dhibaato yani inuu dhaqaalo ku helo ayuu ka shaqeynaya oo dalkiisii hadduu ilaahay ku roon yahay cadowga hadduu ilaahay ku roon yahay dalkiisii inuu dalaal ku noqdo 20 milyan oo dollar asaga qaadan lahaa wuxuu ka jecel yahay 22 milyan oo asaga lahaan lahaa wuxuu ka jecel yahay 200 kun oo leelush ahaan loo siiyo ma garat wixii dalkiisii resourceskiisii buu dalaal ka yahay kalluunkiisii buu dalaal ka yahay shidaalkii baddiisii buu dalaal ka yahay yaa ugaartii dalkiisii buu dalaal ka yahay wax uu reebanaya haba yaraatee ma jirto waa aafo imtixaan ah ummaddu ilaahay ku diray waay ummaddii baa ilaahay ku diray maqaal dheer maantayto oo aan ka diyaarinay baa jiro sida dalka dadku sida loo kala baxo ummadda sida ay maarkin muxuu ahaa dal barwaaqo ah dowlad ku nool gaalo ku nool waxay dagaal kula jiraan dowlad wanaag iyo shacab oo wada noolaado waa kuwa gaalo ku noolka waya waxay duulaan dagaal kula jiraan dowlad wanaag iyo shacabka oo wada noolaado waayo haddii shacabku dowlad xasilooni iyo nolol ay helaan iyagu nolol fiican ma helayaan magarat gaaladaasay ku nool yihiin dhibaatay rabaan qax bay rabaan barakac bay rabaan macaawin inay qiibiyaan oo hadduu ilaahay ku roon yahay muxuu ah cunto expire ah caalamkii laga qaylo dhaamiyo wixii soo galana oo wanaagsan oo dhaqaale in la kala qiibsada la rabaa ma garat si dalkaan u degin waa inay ummadda maarkin muxuu ahaa tuugsadaan gaaladii bay waxay kaniisadii bay tagay Soomaali waa dhamaanaysa lagu leeyahay macnaha dalku waa lagu baabaaya cagabarar baa dhacay malnutrition way cholera dalacay shuban biyood baa dhacay xoolana siiya kaniisadii baa la tagi markaas lacagii baa la soo aruurin ma garat ma la rabo dalka sidii waxaas oo kale loogu hortagi lahaa dalka looga badbaadin lahaa marnaba fikirkooda ma keenayo inay wax tabcadaan oo xoogooda ay aaminaan dhulkooda ay qotaan beerahooda ay fashaan xoolahooda ay dhaqaalaystaan yani muxuu ahaa ma rabaan waa gaalo ku nool waay kuwa xalana ku jiro waay la sooya iyo inta la shaqaysato waay dowlad ku nool dadku waxay rabaan dhibka inay ka baxaan dowlad inay helaan xasilooni inay helaan xoogooda ay tabcadaan
wax soo saar ay yeeshaan ummadoodii caalamka ay wax la wadaagaan inay adduunyo ayaga caawiyaan bay rabaan ma garad ya shacabkii noloshaas rabay waa laga hor istaagay waxaa ka hor istaagay jaajuus adiga kula dhashay cadow adiga kula dhashay aniga ila dhashay oo afkayga ku hadlo afkaaga ku hadlo ayaa wuxuu ummadii u kala qiibiyey in marnaba aysan kabsanin dowladeedii aysan yani muxuu ahaa awood yeelanin oo hadduu ilaahay kuu roon dalkii inuusan degin bay go-aan ku gaartay shabaab baa lagu leeyahay yaa wax siiyo yaa dhaqaaleeyo yaa tababaro xalana laga tababaraa shabaab haddaad ogtahay haddii kaleba maalin baa waxaan tagay wasaaradeenii arrimaha gudaha nin baan u tagay oo meeshayda ka shaqeeyo waxaan u geeyey hay-addaydii ama hadduu ilaahay kuu roon yahay ururkii aniga aan madaxda ka ahaa ee Center for Youth Mobilization and Empowerment taasoo aan runtii ku wacyigelinayno ummadda Soomaaliyeed inaan dadka la dilin in la isdilin qofka hadduu ilaahay kuu roon yahay aaminsan nafsadiisa haligaayo waxaan sameynaa intaan wacyigelin aan u sameyno ayaa waxaan gaarsiin lahayn asagoo bambada ku xiray inuu iska furfuro sababta miirkiisii ma joogo brain wash baa laga dhigay duur baa la geystay waa lagu shubay afkaar khaldan baa la siiyey ideology baa lagu beeray waxaa la tusiyey been baa loo shiday filim been ah waxaa la yidhi aakharo jannadaada waa diyaar isma dhahay kan jannadaada waa diyaar adiga maad aadido iga hormartid isma dhahay hadday jannadeedu diyaar tahay oo jannab haddii la helaayo walaalow aabbaha ma buushgaraysid wiilkaagi ma buushgaraysid xaaskaagi ma buushgaraysid adigi maad gashid jannadaan aniga maxaad ii wadaa adiga ma iga hormartid intaasu aqligiisa keeni waa midka isqarxinayo cadowga ah Soomaaliyeed ya midka la leeyahay orod odigaan janno ku tag orod ninkan wasiirkaas soo dil xildhibaankan dhibaatay ya xawaay asaga aqligiisii wuu maqan yahayo oo ku dhihi lahaa war adiga hadiiba jannadaas saasay u dhowdahay janno le wax la rabo rabbana aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan wa qinaa cadaaba annaar soo naar wax laga cararayo ilaahay waxyaabaha lagaga cararo lagaga baqo soo naar iyo cadaabulqabri iyo adduunyadan in laga yani muxuu sama okay jannadan oo adiga maantayto jeebkaaga ay ku jirtood wadad soo yaqiinsatay sheekhow aniga wiilkaaga israaci aabbaha iyo aabbay ha israacaan ha noo galaan jannada day saas u dhowdahay aqligiis waa keeni waay ma garate marka waxaa waaye hay-addaas anoo wato ayaan tagay wasaaraddu registration baan weydiistay profilekaygii bay akhriyeen way yaabeen waxay dhaheen niya waddankan waxaan lagama ogolo wallaahi oo bilaahi tala oya waa dowladdii xasan sheekh maxamuud ma garate waa dowladdii xasan sheekh u fiirsadaya wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ma garate waa dowladdii xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi sheekhow waxaan meeshan lagama ogolo maxaa dhacay baan dhahay niyahow dalka waxaa waaye hay-ado badan baa joogo arrintadii hadda aad wadidna waa arrin afjarid waaye buu yidhi macnaha oo argagixisanimo in lagu soo afjaro oo wax fikirkan aaminsan in la waayo dalka inuu nabad noqdo ma dhici karto buu yidhi inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ninkii live aan isu fiirsanaynaa skb baan iska wacnay markaan profilekan u diray oo yar baan u dhiibay oo aniga xogeenteyda ah muqdisho joogay xafiiskay wada jooga isgala fadhiyaan toos escape baan ku wada hadalnayna face to face warniyow maxaa jiraan dhahay iyo wada arrintan arrin la ogol yahay maahan buu yidhi sababto dalkan waxa waaye dhaqaala la rabaa hanti baa loo baahan yahay in dalkii aanay dhaqaalo laga sameeya la rabaa saasaa la rabaa lama ogol waxa in la aragtiro waayo waxaa sheegaysidna waa wax yani gebi ahaanba in arrintan ficilkan xag jirnimid inaad baabi'isid baa rabtaa buu yidhi sababto ah nimankan xag jirku nimankan joogo xalana ayagaa tababara buu yidhi
dowladdan tababar bay siiyaan xag jirkan tababar bay soo siiyaan buu yiri koow tusaale ii soo qaatay bari dhaweyt wiilaan isnaqaano oo maanta jaani cirib meel uu dhigay la laayahay oo shabaabka ku jiri jiray shabaab buu ahaa shabeelaan hoosii zoonkan uu ka dagaalami jiray ninkii asaga ahaa markii la keenay dhaqaaqilin loo sameeyay ka bacdi haddana xalanaa la geeyey in haddii hadduu ilaahay kuulay tababarray wax la siiyo ayaa la rabay ciidan yaroo koorso loo furay oo meeshii joogo ayuu aaday wiilkii meeshii wuxuu ku arkay gaal Amerikaan ah oo garkiis intaas halkaas ku joogo oo asagaba wiilkanba tababar hore u soo siiyey oo duurkaas golweyn iyo marin gubay iyo sablaali iyo Hawaii uu horey tababar u soo gaalka Amerikaanka xalanaha joogo ayaa meeshaas tababar shabaab soo siiyey buu wiilkan ku jiray gaalkii baashi markuu wiilkii arkay waa fiiriyey mid kala agtaagnaa war ninkii maalinkayga ahaa buu ahay oo aniga sablaal igu soo tababaray waaye buri iyo meesha la yiraahdo saakow iyo meesha la yiraahdo ii sheeg adiga dhulkaas duurkaas tababar nagu soo siin jiray waaye diyaarad helicopter noogu imaan jiray oo asiga Soomaa waaye ciidankii baa safan oo markaas wixii la tababaray konton nin bay ahaayeen baa leeyahay konton nin waaye markaas mid asiga u dhawaaya wuxuu yiri aamus buu yiri gaalkii wiilkii wuu aqoonsaday wiilkii yani muxuu ahaa oo al-shabaabka ahaa oo shabaabnimadii isu soo dhiibay shabaabnimadii ka soo baxay halkaan yimid xaggana gaal Amerikaan baa tababaraya intana gaal Amerikaanka isla kiiba tababaraya hal macallin bay wada leeyihiin markaas waxaa dhacday shibshibtii wixii kii gaalkii u arkay wiilkii inuu yahay ardaydii asaga soo tababaray inuu sir bixiyo diidma daraadeedii ayuu kuleetigu dhab intuu siiyey ninkan uu xiran yahay buu daf wiilkii marka badda taagan baa barti baa laga qaaday doon baa la saaray markab baa loo geeyey bari badda gudaheeda yaa ka sheekaynayo kii shibshib dhahaayay oo agtiisa joogay ilaa had wiilkii lama hayo jaani cirib meel u dhigay lama hayo jaani cirib meel u dhigay lama hayo dalka marka waa loo tashiray nimanka xalana joogo oo hadda koor dhulku loo saxiixay oo Xasan Sheekh Maxamed u saxiixay oo yiri qof Soomaali dhalashadiisa ay tahayba hadduu xataa baasaboor ajnabi wato kama shaqeyn karo ninkii saxiixay buu Xasan Sheekh Maxamed buu waa dhulkaagii hooyo oo adiga aad leedahay xalana waa meeshii geesiyeeshii Soomaaliyeed lagu tababaray jiray ardaydii qiimaha badna ay ka soo bixi jirtay ayaa yiri qof Soomaali ah kama shaqeyn karo aniga ilaa badda meesha calanaha intaan dhex tagay gees min gees meel walbo ilaa isbitaalladoodii meel kastaan maray xafiisyadoodii waan dhexgalay wax ila hadlan raadinayay wax ila hadlo oo yiraahdo ma soo geli kartid iyo waxa ma sameyn kartid iyo baddan kuma dawaalan kartid iyo meeshan live kuma geli kartid iyo waxaasan raadinay wax ila hadlana waa waayay xaqiiqadii intaan joogo anaaba raadinayay middaas ayada waa waayay ma haddeedii waxaa iska leh maxaa Cabdullaahi maxaa Farmaajo meeshaasoo lagu kibray oo lagu takburay oo lagu badraamay oo hadduu ilaahay ku roon yahay ayaa Farmaajo yimid markii buu yiri dhulka Soomaali baa iska leh wiilka Soomaali inuu dabaasho xaq buu leeyahay badda inuu ka kalluumaysto waa dhahalkii awoogiisi way adigina waxaad ka tahay martibaad ka tahay hadda nin Soomaali ama gabar Soomaaliyeed xalana dhaxdeedii markay si doontay u lugayso keli in la baaro oo la yiraahdo war hay'ad dimbish maxaa ku wada bal aan iska fiirino wax kale la weydiin habeerta ma jiraan wax kale la weydiinayo oo Ilaahay uuntay habeerta ma jiraan waxaan leeyahay marka ummadda Soomaaliyeed dawlad ku nool iyo gaalo ku nool baa la noqday oo leeyahay gaalada ku nool gaalada raaciintay u yihiin sida hadda midkan oo khayr laabahan oo Cabdi Ismaaciil Samatar la yiraahdo ay buu wata gaaladii buu dhex joogo dhowr yar meesh ku arkaa soo isla daba gaab wato kor iyo hoos ka ciroobay oo waayeel ah asoo intaas leeg buu ay wata gaaladii buu ku dhex wata wuxuu aaminsan yahay annaka naga jecel yahay gaalada saydu ku naga jecel yahay
ما عندنا سنتر بنويه عبد إسماعيل سمتر سنتر عبد إسماعيل سمتر قالوا لي معنا وآفدوا أمضوا الصوماليات كوهب ستة كمتها dalku marka ninkii ala kulli hal waxaan muruna borne oo lacag qaad isha ahadan tan ma shuruudaha kuma jiro buu qof yani muxuu ahaa afkaartan oo khaldan ideology qof baabiinayo wasiirka miga ogolaanaynin buu wasiirku ayaan miga ogolaanaynin arimaha gudaha ee waqtigaas igma ogolaanayo ya arintii sidii baan ku daayay dibdan banigana umaana raadinin oo hay'adii taydahayd xaqiiqadii bari dhawad baan muqdisho markaan tagayay isla ninkii baan arkay oo markaas meesha fadhiyay ilaa hadda ninka asagoo meeshii fadhiyay wixii baa ku programsan magaad ilaa hadda wixii baa ku programsan aad iyo aad baan ugu xumahay markii in yani ummaddu yani ay noqoto hankeedii dhibaato wax lagu raadiyo dheef iyo يعني wanaag wixii lagu raadin lahaa inay dhibaato ay ku raadiyaan in qaraxidan korkoodiiba dhaqaale iyo income galay baan ogaanay in la isqarxiyo farxii daahir aad baan ku salaamay farxiyo aad baan ku salaamay sheergay barnaamijku waxaan leeyahay waddo Soomaaliyeed marka war dalkan inaan ana kaleenayaan ogaano shacabku dalka inay difaacdaan bi xaq u leeyihiin kooxdan gaala ku noosha ah gaalada ku nool هذا الجامعة كاهن هالجماعة سرع سلام كان إلا بيجدون ما شاء الله قف والبو الدنيا دلكي وحال اسكود سنة كان إلى لا دقالمه قف كستو رنشاقة قف كستو قرن دفاعي كرو قف كستو قالهم توشيقي كرو قف كستو قال لحساب تمي كرو وعدين كرو دل كان إناد أدقى الليدة وأدن قال هادو كوربا وحايقود عدي واجي الشيخ شريف بيهيت ايربور كدهي سنين قال وحدو الى كوران يحي يوغانديس اسكو دغالني انا ان مدة ودنك موغا ايام تغي مغالada muqdisho june 14 keedii bay 2012 sheekh shariif waqtigiisii bay markaas anoo taagano sawir liiga qaadanahay no buuri waa idab daran tahay buuri istibud ba tahay buuri ya tamashaqadaadi miya so this is my country bandahay my airport yeah ma meeshan tay igu anshurtid wallahi wuu yaabay hoos u fiiri gaalkii asaga aha shaqadaad ku ka u bandahay waxaan ahayna moogid bandahay dhulka kan ana iskale baan this is my country bandahay magar garabkaaga fiiri waa calanka Uganda saaran mi fahamt kan ana iskale bandahay waan duubi صور بانكو قالي هدو إلهي كورونيا هاي وادول كي مالين كاس شيخ شريف أو دولة دي بدا قد جرتيا هايت وقت كاس السقاها أيا قف والبوء صومالي ولا همدي دي جري سركال صومالي قاشان للصراحة أيا إيرابور مقدوشي اللي ديوالي دولة دي حسن الشيء محمود ما عندنا مدينة كرتو إنك سركال كا سلام بوصالي أسكاري قد بلها شعبك الصوماليات بلامية لو دردر جري dadkii yani bajaajleeydi iyo kulli taangiga Amisom yani waa wadada lagu dardar jiray waxba iska moodin jiray maadaama madaxweynaha waqtigaas uu yiri qabka madaxda Soomaaliya inay hoos ay u dhigaan hoos in la isu dhigo madaxweynaha baa yiri Soomaa Xasan Sheekh Maxamuud waa tiimidkii u sujuuday bay ahayd gaaladii intuu tagay oo Maxamed Buhari ninkii ahaayo Nigerianka hala yaabay uu yiri yani muxuu intii ترمبدي لو يريي وهدو إلهي كوري مركز كاميرا لو سيو يعني حوث قبسي بدولك السلك يعني محوها وسجودي ما قالت مركو حوايا ان هن يرداس ايدا واوixii la soo maray bay ahayd xarawan rumudina uu sheego mugdigaas inuu ilaahay nagu celin horta faataxada mar mugdi aan ka soo baxnay mugdi ayaan ka soo baxnay iftiin baa maanta u baxnay iftiin ayaan u baxnay 20 jiro kan ugu weyn 30 sano jiro 7 sano ilaa wixii ka horeey ilaa 18 wixii ka koreey inta ka dhacal oo dhalinyaro ah oo ciidan ah halkii qof 20 askari oo Kenyaan ah tababarkoodii uu qabo awoodoodii uu qabo hubkoodii halkii qof oo Soomaaliya hal qof 20 askari
oo commandos oo Kenyan ah daqiiqadu soo ka qaadanaynin talaga ya dhamaan markii la qoray caafimaadkoodii baa la baaraa waa la jeegarayaa hadduu ilaahay ku difaac jirkoodii baa la fiiriyaa HP goodii baa la baaraa dhiigaas baa laga fiiriyaa hadduu blood groups-kooda la fiiriyaa yani waxa waaye hanti baa la soo saaray magaad waxaan yani maanta maalintii cadow yani noo hanjibi jiray anaka kuma jirno waxaana laga la'ayahay keliya inaan annaka sharciyadda xaggeedii inaan ogaano inaan nahay dal xur ah dalka inaan annaka leenahay gaaladu waxay u baahan tahay qof isfahmi karaan bay rabtaa gaalkan dhulkan kulama lahan laakiin ishiisa lagu arka ushiisa lagu tuma markaad gaalka u tagto haddaad isdibciso hankaaga hoos aad u dhigto gacmo hoorsi aad gasho calaacal aad bilowdo gaalku kugu tumanaya ila waa u jabtay sooma waad jabtay adiga waad tagaysaa gacmihii baad horsinaysa sidii rooblo oo kale megan allaay nin kaalmey sheekadaad nagu caayin jirtay sooma eelayd maxaad dhihi jirtay eelay waa tuugsataa soo maanta nagama darin idinka ilaahan idinku dhaarshe ya nin madax ah oo eelay oo tuugsado weligiin ma aragteen nin madax ah taytal leh oo eelay ah ama raxan weyn ah oo intuu feel galo tuugsado lama arkin laakiin nin eelay oo beertis abaarsatay tuugsaday waa la arkay nin eelay oo geela ka dhamaaday tuugsado waa la arkay nin eelay hadduu ilaahay kuu roon yahay lasoo barakeeyo ma arkin hantidiis la dhacay oo tuugsado waa la arkay laakiin nin madax oo eelay ah oo baastinta u istaago 7 saac subaxdii 2 saac subaxnimo airport intuu galo diyaarad dib u dhacdo diyaarad gobolada aaday oo hadduu ilaahay kuu roon yahay oo weliba diyaaradii ugu liidatay ay tahay oo qanax ah oo diyaaradihii imaaraadka caalamiga ah aan hataa lagu soo aamini waayey baasto kartoomaad baasto iyo buskud la soo saaray nin qoraxdaas u istaago oo salaad khudbo ugu tagto oo eelay horey weligiin ma aragtay roob la'aan ahayn Soomaaliya gaalka dilkartiisii baa la yidhi haddaan idinla kaftamo igana raalli ahaade ya ha umay ya runtaa la rabaa soo ma ha umay ma dhicin nin eelay ah salaada khudbada uguma tagto kartoon baasta ah oo imaaraad soo dhiibay uguma tagto eelayda waa tuugsataa ma diidin ha tuugsato laakiin waa kuwa tuugsado waa kan beertiis abaarsatay waa kan la barakiciyey waa kan biyaha webiga laga iibiyey oo biyaha waa kan beertiisii waqtigii dee xaaladihii adkaa jiray oo shabeellaha hoose oo kale oo kanaalada biyaha yacni 2 beeroodba meeshan ku taal mid waa la dhacay liin baa ku taallo moos baa ku yaallo yacni geedaheed waa wada qoyan yihiin midna kanaalkii baa laga xiray lacagtii buu iska bixin waaya kanaalkii biyihii socday waaya oon la joojin karinoo ilaa iyo goobiin halkaas goobiga saas ugu daro oo badda hindiya ku daro biyihii asigaa la iskiima wax lasoo maray be kuwaas oo kuwa tuugsado dee kuwaas maadaama markaad soo dhibaataysato inay dib usoo laabtaan ay kugu dhex tuugsadaan waa macquul laakiin lama arkin nin madax ah oo taytal leh oo ra-iisul wasaare qaran Soomaaliyeed ah oo raxween ah ama wasiir ah intuu goor subax ah maalin jimaac ah salaad khudbayd oo la iska rabay salaadii meesha kugu dhaafto duhurkii meesha kugu dhaafo asarkii markii la gaaro diyaarad soo degtay kartoomaad baasta ah iyo buskud saaran oo maalin cad adoo khamiis cad wato oo hadduu ilaahay kuu roon gacmahaada horsan oo safiir xun oo maarkay cadowgaagi ah oo aad yani muxuu ahaa aad u nacamlaysido oo aad waardiye ka noqotid oo gadaashiisaad istaagto oo baastaad ka qaadato qof eelay oo sameey ma jiro car soo saara magarat ma jirto waa hindo runtaas sheegay hindo sobley ma ku jirtaa hindo ma ku jirtaa hindo maanta tuugsiga waad iga badisay maadaama ra-iisul wasaarihii wasiir hataa ma ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ya yani waxa waaye yani waa de waxaa noocaas oo kale ah ayaa caalamku dad noocaasa nagu dhex jiro oo deganaansho aanan rabin waxaan soo ogaaday xanuunka rooble waan soo ogaaday Soomaaliya sheergaray barnaamijku waa xasaasi waay tashalay waa taan idin sheegay ra-iisul wasaaraha inuu xanuunsan yahay waa midaan idin sheegay bay ahayd xanuunkii ra-iisul wasaaraha markaan baaris dheer juhdi badan aan ku bixiyey tiimkeygii aan u diray oo la dhaxgalay difaac qaran iyo rag badan hadda waqtigan haadirka magaaladan ugu soo tagay ayaa jiro
dadaal fara badan kadib xanuunka ra'iisul wasaaraha waan soo helay ra'iisul wasaaraha aloosha furantay xaqiiqdii ilaahay caafimaad ha uu bedelo markii kursigan Fahad Yaasiin la soo dhajiyay oo hadduu ilaahay ku roon yahay mudday flight-ka laga reebay ayaa isbeddelkan ku dhacay stress baa qaaday qofku markuu depression qaado oo stress ku dhaco jirka hormoonka oo dhan baa iswada bedeli ninkii calooshii baa furantay ilaahay ha caafiyo hashiise fara badan guddiyihii faraha badnaa uu magacaaba jiray oo xalay aan idin akhrin jiray guddiga soo celinta ciidankii beledweyne guddigii afgembigii hadduu ilaahay 7 bishii December guddigii hadduu ilaahay ku roy lacagtii 9 milyan wixii oo dhan baa aruuray oo laga diiday oo socon waayeen wax walba soo sheego hadduu inaan anzalnaa soo akhriyo war ruuxun baa loo fadhiya meel wax marsiyo markuu waayay ra'iisul wasaaraha yani stress baa ku dhuftay stresskii marka dadna waxa waaye waalnibay ka qaadaan way waashaan dadka qaarkood qaar calooshii baa si aan maala yacni ah yani calooshii oo aanan ayadoo maarkin muxuu cunto ku jiro iska soconaysa haw waxaas yani asagoo waa isdareemi karaa asagoo meel fadhi calooshii waxaa ka yahay quluqiin waxbaa ka dhex guuxay macnaha waxaasoo dhan waa hawo iyo stress iyo depression ayaa keeno cudurrada noocaas oo kale ayaa asiibay oo maalintii ka dambeeyay sii xumaaday wejiga ra'iisul wasaaraha ka dareemi kartaan magarad calaamadaha fi saxaab waaye qofka body language-ka la akhriistaa wejiga fiiriya afka fiiriya meel dhabanada fiiriya waxaasoo dhan inaad fiirisaan baa loo baahan ummadda yani in mogtay waxaan waa dhaqa yani qofka cilmiga caafimaadka barashadiisu ciyaar ma aha marka arrimahan baa u aruuray stresskana waxaa keenay wasiir uu magacaabo laga diido wasaaradii gaashaandhigii oo in la gala la diido wasaaradii amnigu waxay qorto oo banaanbaxyadii iyo wixii mudaaharaadii la abaabuli jiray oo la diido guddigii ikraan tahliil oo shaqeyn waayo wixii oo dhan baa isu biirsaday ilaa iyo 11 hadduu ilaahay ku roon yahay iyo yani awaamir uu bixi jiray waxaan waxaa la faraya wixiin wax fartoomay maahan cid maqashaa la waay warkii walla maqli waay qof kasta dhego iska jaray ciidankii dhagahay wada jarteen way ka fureysteen oo yani muxuu ahaa uma soo warkiisa wax dhagaysta malahan waa in la saga qoslo hatta kuwii mucaaradka ahaabaa caynaayo ay leeyihin war waxaan waaba doqon bu ahaa ay leeyihiino markay dantooda ay ka waayaan meeluu jira maahan dowlad xaggeedina ma jiro mucaarad xaggiisana ma jiro jaajusnimana banaanka uma soo istaagin wuxuu noqday laa haulaa walaa haulaa mudabdabiina bayna dalika laa haulaa walaa haulaa meel bannaan uu taagan yahay meel bannaan ah ayuu taagan yahay roble ya mudabdabiina bayna dalika laa haulaa walaa haulaa khalaas way qof markay taas mudabdab u noqdo oo meeluu jiro markii la waayo qofka aafaa ku dhacayso xigmadii baa ka dhammaanayso caafimaad xumaa usoo darsayso stress baa ku dhacayo waxaa ku dhacayo siyaasad fobi wax la yidhaahdo khalaas waay meel u roon ma laha meel u roon maanta haba yaraatee ma lahan meel walba madaxa ku dhuftay darbi unbaa ka hor imaan heshiis walba soo barbowsal gelayso wala nimanka nabadii nolol dhalinyarada dadka nabadii nolol waa musiibo nabadii nolol bini aadam caadiya ma ahan waa wax lala yaabo inna lillahi ba hadda say jaantu wada qaadaan baa la yaabay nabadii nolol iyo ciidankii baa isku xirmay magar ciidamadii hadda beri dhawood markii amiir fahad markii doorashadiisii ahayd waad ogtiin baan u malaynayaayo hal nin oo taliye ah oo haray ma ahan kulli waa la wada baxay ya ilaa hadda laga joogo Fahad Yaasiin xilkii asagaa gudi hayo rooblow taasoo ogow aaway todaadan ogeyn iga ogow aniga xilkii oo hadda kor shaqo joojin baan ku sameeyey iyo agaasimo cusub baa la sameeyey iyo Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Faray hal naf waa hal qof waa hal qof Fahad Yaasiin iyo ninka la yiraahdo muxuu ahaa
generaal إيش هذا generaal فرحان قرولة وهالقف واي هالفكر بيكون الشقيان كيريا فرتاس هو ودواء يفاد ياسين هالقف واي عيدك حقوق الدولة الصومالية فرماجة هالقف واي مدام جمهورية الصومالية عيدك حقوق الدولة الصومالية هالقف واي ما كلاهم فرتاس هذا وقاتين والله بعين بس كعادة هذا الجيل ما قالت مدة سنة نيدا قشطه وواحد لو باهي روبلو ما قالت دربي والبه او ادقراعه برشبه كهورتمت لكن ما انت شرفت هذه الحين يجري لهد انا اسال زشيت لكن ما يليست دورشنا ما ربتت ما قالت سياسة wax lagu cuno ma taqaanid waana ku faraxsanahayo in dullinimadii rafaadka isbaday iyo imaaraad inay ku soo diidaan su'aasha ugu horeyso lagu weydiiyay ay ahayd aaw lacagta noo ballan qaaday 9 milyan ya wa 9 milyan aaw adan ku halaalteen laheene bal lacagtan qabloone ya farmaajo ciidankii dawladda Soomaaliyeed ba naga qaabtay oo indhaha badnaaye aaw ibu lacagtii noo wada maya markaas maxaa noo timidaan haddana lacagta wadin 9 milyan aaw waxay islahayn ayaga bangiga laga soo bixina diyaarada la saara xagga la geeyna kadib qaada lagu dhahaa inuu boor ka soo jafto dib u soo laabto rabay macnaha rooble waa dhiciwaysa diyaayade waa dhiciwaysay sababtoo 9 bilood meesha bilaash uma aanan joogin 9 months aniga bilaash uma aanan joogin magaalada Muqdisho ya bangigaas baan ilaalinaynay hantidaas qarankaan ilaalinaynay maadiya ka gaarto ciidanka duufaan iyo waran oo runtii mar walbo bangiga garab taagnaa oo inay u shaqeeyaan ay diyaar u yihiin haduu Ilaahay ku roon yahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah taala wixii dhacay wixii la soo maray waa la soo maray xaalad badan baa Muqdisho wax badan baan kala kulmay intaan magaalada joogay wax badan baan la kulmay laakiinse hada waa gurmud qaran waay يا ولاله وحنا هين حوله ومقع ولاله وحكى لجوا يا وحلاي مركا إن شاء الله تعالى أن مستر روبله حنون كيسي كرسي جاس فهد ياسين إيو جديد ترد بدنا الله سار الجري إيو ساق بشدي جنرال حوت وحياه بدن بأسوق كاشداي إيو دور شدي براوة وقتي براو دور الشدي كراستي براو تالينا روبلو وكحم هذه روبلو أرهرنا أحمد مدوبي إيوه سعيد عبد الله دانيال ولقين بقرحي مقع بالو كيمد وانا غانانك شالي وحنادي أغوون نحي مركي قرح عيدن كاللودي قرح قرشيسن أو داني أغاوي قرح داني وو أغا برنامج نمبر وينا كدياري قرح واسيق أغاوي sababtoo qarax wuxuu dhacay baabuurtiisi markay gudbeen gaarigii u dambeeyay ayaa lala beegsaday hadii qarax lala rabo dani in lagu kharijiyo haday rabaan dani way kharijin lahayn laakiin waa wax la isla ogaabo ahayo waxa lagu qancinayay lagu siri rabay oo in lagu siro go'aan lagu gaaray miinadaas ayada waxay ahayd waxay rabaa inay ku qanciyaan dubeys inay ku qanciyaan beelaha warsan galay inay qanciyaan bay rabaan qarawaati madaxweynaha wala la beegsaday oo saan waayo laakiin la yaabka adduunku waxa waay mahiig ninkii la dhihi jiray ee galan ahaa mahiiga Agostino mahiiga adeer ku ahaa saaxiibkay galan ninkii ahaa dhaantu tuntay baabuurtii miida saaran mayd baabuurta gawaaradii ciidanka miidkii ba saaran lama aasin markaasuu armo dhaanto ku xirtay rig Soomaali miya qofkaas Soomaali ma garat boowe wixii bad keenta boqor baale arintan hore baa loo yiri waxaan arkaan dhahnay ma garat marka waxaan waa wax iska yaani cadood ummadan waa la isku dhex jira boqortooyada mar hore ayda ismishintayo balaay soo dhaweysatay kii badda gudaheeda ku jahwareer way soo qabsatay
kii duufaan ku dhalato meesha iyada soo aaraysa doontoodii way soo kahaysteen wax walba waa la keensaday naxdin malaha wax kale malahan waa la isku dhex jiraa ummadii marka waa aafe ilaahay waxyaabo yani imtixaan rabbaani ayaa ku habsaday waana aad iyo aad baan ugu xumay baddan zoonkeed uma rooneen qoyska inuu dego boqortooyadii hadda intii la dhexgalay oo gabdho la guursaday oo yani wixii يعني إن لبدل نسلي وحي لكن جنفوركي وحي ده وبابي لا إله هدرته وصوت تاني وحي وسنجي مجوران بنقضي يعني ولا كري لا ودم بنتي نيجي موسى جيله وده شيء باشا أدو لا يكون أن علي سليمان وعن لا يهي طلقاقي والظلميه تقيمة لبعض كدالتي وشرف بدن وكرامة له وإنسانة ayaad ka dhalatay koonfur galbeed ku mashquulin kursiga hor 103 eelay baa iska boqoraad baa leh eelay baa leh boqoraad baa leh jawaari 60 40 iyo muxuu ahaa 60 sano ku dhawaad ayuu kursigaas saarnaa magaalada buurarkaba airport malahan iskoolaad malahan waxba malahan waa la isla xisaabtay eelay markuu xisaabtamay jawaari inay iska bedelaan bay go'aan ku gaareen موسى هداد ما سنتاي ما يسقف أو بطلان دكيم أو علي السليمان ما كرسي عن بقول يسده قربتا كونفور قلبت هديت تاس دمع أو كجر مهلي ست تاس إلى هيك وما مقنع ما قرت كرسي عسي حلال بالله دورتي قد قيمة بدن بجوجي كهري قدومي شرف لي بجوجي قرابيلكي قرابدي ددكي بو لو كلمي قف بو arkay eelay ba go'aankaas gaaray cid bedeli karta malahan madaxweyne farmaajo bedeli ba maxay madaxweyne lafta gareenan bedeli karin go'aankaas eelay ba iska eelay go'aankeedii waay mid adiga joojin karto oo maanta lagu daba istaagayo haba yaraatay malahan waxna warqad cid kaaga baahan malahan intaas oo waxa way kursiga hab 100 iyo konton 103 waa هو بقول لكم دنيا فرق سريع كوفر ده قبيل هذا ملي راس كله أو قلبور اللي هذا أيها كوه شيء كرسي وها الله قرتي إني سريع كوصل لابد قبيل بديبي مت أدي لقالات الشنا هابي راتي معه إن أنا الضمير لهين موسى جيله إن أنا الضمير لهين dadnimo aan lahayn doqon aad tahay hatta waad awoodi weyd wali afduubtay inaad qaylaan dirsato ya koonfur galbeed gudoominimo kuma aqoonsano awaamirteed wax laga ma weydiinayo koonfur galbeed waxba laga ma weydiinayo roob hadduu ku afduubi lahaa hadduu ku jirdiri lahaa liibaan shul hadduu madax kaa garaaci lahaa hadduu container kugu xiri lahaa taas aday gaar kuu tahay annaka nama qusayso koonfur galbeed baan nahay doorashadaas si loogu talagalay bay u dhacday mid adiga joojin kartid maahan mid dani joojin kara maahan mid beel caalam joojin karta maahan mid ninkii Axmed Madow joojin kara maahan meelaha dambiga yaalo waa deegaanada aad ka timid way la isku dulmiyo oo dadka lagu laayay warmeeshaas aad oo halkaas hadaa wax ka qaban karto aad deegaanadan Hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudug ha ku dulmeeraysan iyo banaadiri waxa shaqad kula iman cid ku aqoonsan abiyaatay ma jirto ma garad hadalkaagii waxa waaya hadal maantayto cid bini aadam ma dhageysanaysa ma koonfur galbeed iyo Hirshabeelle iyo galmudug waa magaalada deegaan xor ah waay kursigan faad yaasin mid adiga maantayto iska dhaafay waa kursigaas isaga يعني كرسي أديك إسكداف يعني كيانكي أدو أديك يسيو إماراتكوا حتى هدي يعني محوها ميزان كاقودها ودي كرسيان مجو جنكنا ما لجو جنكنا والله متابطان واي أفاكو بطوع على اسمالهن هدي قوري لقوقة بتوالي أفضو بيده ما قرد أفو حدو اكتاها إلا ديواتي ولا جردلي ولا فرحمي ولا اكتاها ضلدا دي يدالك كاموغو يدو إلهي كورين قاب دردا كاموغو iyo dulinimada ka muuqato isduleenti rafaadka ku haysto war waxa qarsto wax ku qarsadaan ummadda Soomaaliyeed la wadaag
oo u tag guddiga xalinta khilaafaadka iyo maxamed barri iyo dadkaas meesha degan u tago warnimiyahu dhibkana liigu hayo waa lii handadaadhe liibaan shurug waan kaa fujinaynaa ma garat haddaad aaminsan tahay yani muxuu aha liibaan maanta yani awooddii 1992gii wixii ka dhacay oo hadda ka hor gaalkacay wixii ka dhici jiray oo kale wax lamid a inay dhici karaan haddaad aaminsan tahay war waxaas ma jiraan maanta ciidan baa jooga soomaaliyeed aad iyo aad u qiimo badan ciidanka intiisi badanna ma arkin muxuu ahaa wayba ku yaryihin hawiyii daarood waaba ku yaryihiin ciidamada soomaaliya oo maanta intu ku dhaarato waa ciidamo koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo deegaanada dadka xalaasha ah laga qoray waay maahan hataa ciidamada yani eg wax ku yeeli karta maaha dhibaatada ku haysato sheego muuso ma garata nin kaamir lagu duubay baad u eg tahay nin la fadeehayey baad u eg tahay nin wax ilaalinaya baad u eg tahay ha isku celinayna hadalka soo daaniyahow ha isku celinayn muuso wixii ku hayo dhibaatooyinkii jirdilka laguu geystay sheeg nala wadaag haddaad doonto teleefonkayga gurmudkan halkaasu saaraya ii soo diraan ila soo hadal dhibaatadaada ii sheeg anaa kaa warbixin anigaa kaa warbixin laakiin inta ka horeyso shaqo aan shaqadaada ahayn baad gashay ma lagaaga amar qaato cid kaa amar qaato koonfur galbeed joogto ma lahan hirshabeelle ma kaa amar qaadato galmudug ma kaa amar qaadato markii lagugu soo tixgeliyo garowe markii garowe aad tixgelin aad ku heshid markaad bari tixgelin aad ku heshid markaasaan ku qiimeynayna moy hadda kaama naqaano ey baktiye id kaa taqaan ha wallahi inaysan jirin haddaad hadashiyo haddaad qaylisid iyo haddaad iswaashid iyo qof bini aadam oo kuu joojinaysa yaraata ma jirto koonfur galbeed doorashadu way soo gebagabeynaysaa way soo gebagabeynaysaa doorashada sidaasay ku soconaysaa kuraastaasna waa kuraas yani xalaal ah si xalaala lagu doortay hadduu ilaahay 3dan kursi kursigan hob 86 iyo hob 54 154 iyo hob 103 waa lama taabtaan waay kuraas laga hadli karo oo dib loo celin karo oo maanta kenyaan iyo imaaraad wax laga weydiin karo kuwan ma ahan kuraastaas imaaraadka soo saaran rabo ee garoowe oo kenyaanka iyo kuwan jubbada oo jubbaland oo muxuu ahaa oo hadduu ilaahay ku roon yahay kaamirooyinka laga soo duubay oo afduubka loo haystay oo lagu haystay Don Home hotelkii ku yaalay hotelkii la dhihi jiray Benaari miya hotel meelahaas ku yaallo kaamirooyinka loogu soo duubay inta mid senator baa ugu jiro oo naftirkiisii faraa laga hayaayo kii oo Ibrahim Awgaab ahay walaalkay ahaa asiga inuu wax ii sheegan wuu diiday inuu wax sheegana wuu rabaa yani nin shock ku jiro waay nin dhibaataysan waay marka dhamaantood yani muxuu ahaa sirdoonka Kenya ayaa kaamirooyinka duubay ayagoo qaawan baa la duubay say la tahay way mishimiin way dhibaataysan yihiin marka waxaan ku leeyahay muusow Soomaali waa ilbaxday warkaagan maanta kuma socdo insha allahu tacaala waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gacmaha la isqabsado si abaarta iyo qaxa iyo dhibaatada iyo kuwan gaala ku noolka iyo kuwan qaraxyada yani muxuu ahaa mar walba ummaddu soo dhiibo si looga badbaado ummadda gacmaha isqabsato beesha dhulbaanto waxaan leeyahay si gaar ahaaneed baan idinkugu tacsiinaya hal doorkiinii mar walba sidaasa loo gala waan aragnaa waxaa idin dilana waa kuwa dhalashada aad wadaagtaan waa kuwa idinka dhalashada aad wadaagtaan oo isku daba qortaan kuwaas way kuwa idin dilo meel walba yani maantayto ma dhihi kartaan Soomaali kala dhibaato noo geysatay ma gar Soomaali kala maanta kuma eedeyn kartaan oo digli mirifna dhibaatay ma dhihi kartaan oo hawiyana dhibaatay ma dhihi kartaan oo dirban dhibaatay ma dhihi kartaan kuwii adiga kuwii idin la dhashay kuwii idin dilo waxay idin dilaan waxay tahay yaa dad wanaagsan baad tihiino gumaysidiid baad tihiin kuwan idinka idin la dhashayna waxay rabaan inay dugaan oo yani dameer amal in loo rartay rabaan idinkan rorkii baad u diidantihiin in la rarto aad u diidantihiin target baad noqoteen runtii aad baan ugu xumahay xididkaygii wiilkaygii Siciid baad abti u tihiin oo aadka aan u jecelahay baad abti u tihiin hooyadiisu Axmed Garaad ah marka insha allahu tacaala waan idin tacsiyeynayaa laakiin waxaan idin leeyahay kuwan walaal aad moodeen walaal ma ahane ka tashada kuwan walaal ma aha sheekhan maalmahan runtii aad buu u waaniyey oo dadka meesha ku nool buu aad ugu maxaadireeyey
wuxuu ka hadlay dhibaatooyinka magaalada, abaaraha, wax walbo, muxuu ahaa qabyaaladda, boobka, cadaalad darradu, wixii buu sababsay oo loo dilay. waxaa lagu leeyahay shabaab baa dilay, hebel baa dilay, masaajid magaala ku tukunaysin, ee qofa meesha joogta, maxaa sheekhan keliya qarax loogu xiray, maxaa hodonaaleeye keliya loo beegsaday. waa iska cad yihiin. marka dhulbahanto waxaan leeyahay kuwan idinkaan walaal moodaan walaal maahane, kuwan walaal ma ahane, jawaasiistan oo walaal aad moodaan walaal idinma ahane, is aruuriya idin leeyahay. ummadda soomaaliyeed kala soo dhexgala oo hadduu ilaahay kuraay soomaalida wax la wadaaga. waad baaba'deen, haldoorkiini oo dhan baa la laayay. xaqiiqdii idink isuma jeedaan, laakiin wax badan baan arkaanay. mar walbo qofka haldoorka unbaa laidinka dili. taariikhdii soomaaliya baa la dili, wax la sumeeyo, wax kas loo dilo, wax si kala noqdo. waad baaba'deen xaqiiqdii. aad baan ugu xumahay. sheekheenin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariistan leenahay. sheekh caalim ah, inkastoo aniga maxaadarooyinkiisa wallahi maba arki jirin, laakiin maanta markaan dhexgalay oo aan arkay, wallahi anaaba ooyey runtii. mufti caalim buu ahaa oo aqoon-yahan ah ayuu ahaa. marka insha allahu tacaala sheekheenii sabr iyo iimaan allah naga siiyo. ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay gacmaha la is qabsado, cadowgaan gaala ku noolka jaajuuska nagu dhex nool si aan ula dagaalami lahayn falankeeda ha la galo insha allahu taala. gurmud qaran iyo safarkii East Africa. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.